muuqaalkan waxaa kugu soo gudbinayaa nabraha ka soo baxa bishimaha bannaankooda ee caafimaad ahaan loo yaqaano herpes labialis. nabrahan Soomaalida dadka qaar waxay aaminsan yihiin inay ka yimaadaan caarcaarada, oo dadka qaar ayaa dhaho caaro ayaa afkayga ku kaadisay, nabar ayaana ka soo baxay. waxaasi waa wax khuraafaad ah oo Soomaalida aamintay, waxbana kama jiraan. muuqaalkan ayaa kugu sharxayaa meesha saxda oo xanuunkan uu ka yimaado iyo sida saxda ee loo daaweeyaba. balse intuusan muuqaalka bilaabanin, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, sidoo kale tan aad la wadaagto saaxiibadaada si ayagana ugu faa'iidaystaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. si aad muuqaalka hordhacis ka soo aragtaybo, muuqaalkan waxaa rabaa inaan ku sharxo nabraha ka soo baxa bishimaha bannaankooda ee caafimaad ahaan loo yaqaano herpes labialis. waxaa jiray muuqaal hore aan ka sameeyey nabraha ka soo baxa bishimaha gudahooda ee caafimaad ahaan loo yaqaano aphthous ulcer, balse nabrahan way ka duwan yihiin oo waxay ka soo baxaan bishimaha bannaankooda. waana nabro yaryar oo kuskuusan, islamarkaana dheecaan ama dhiig afka ka wato. nabrahii hore aan muuqaalkeedu ku sharxayay daawo la-aan ayay iska baaba'ayeen, laakiin kuwan qaab saxan oo loo daawey ayaa jirto. dadka Soomaalida inta badan nabraha bishimaha bannaankooda ka soo baxo waxaa jira khuraafaad iyo way ka aaminsan yihiin, oo inta badan waxay dhahaan nabrahan waxay ka yimaadaan caaro oo qofka afkiisa ku kaadisay. run ahaantiina waana la yaabay khuraafaadkaas. su-aal fudud aan kugu soo celiyo, weli ma aragtay caaro kaadadeeda? run ahaantii waa wax cajiib ah soo mahan. xanuunka loo yaqaano herpes labialis wuxuu ka yimaadaa nooc ka mid ah fayrasyada jirka laga helo, gaar ahaan fayraskan loo yaqaano herpes simplex virus 1, waana fayrasyada sida degdega jirka ugu fido. herpes simplex virus markaa la dhaho laba nooc u qaybsamaa. nooca koowaad waa nooca xanuunka keeno, waana herpes simplex virus 1. waxaa jiro mid kale oo loo yaqaano herpes simplex virus 2, wuxuuna keenaa xanuunka loo yaqaano herpes genitalius oo ah nabraha ka soo baxa xubnaha taranka. waxaa filaya hadda inaan isla fahanay waxa saxda ee xanuunkan keeno. waxaa rabaa inaan kuu sheego sida saxda ee xanuunkan uu ku yimaado. xanuunkan waxaa keeno HSV1 ama herpes simplex virus 1. herpes simplex virus 1ka sida caadiga jirka waa laga helaa oo wax dhibaata uma keeno, balse marmarka qaar ayuu wuxuu ka faa'iidaystaa difaaca jirkeena oo hoos u dhaco ama qofka oo xanuuno kale oo ku dhaco. markaas ayuu isku bedelaa nabraha hadda sheegoono. nabrahan hadda sheegoono ee herpes labialiska loo yaqaano inta badan dadka way kusoo laalaabtaan, oo waxaa laga yaabaa qofka haddii isbuucan ay kasoo baxaan uu ka daweemo ama sida caadiyan iska baaba'aan in isbuuca xigta ama isbuuca saddexaad ay haddana kasoo baxaan. waxaana sababi karo qodobo badan. waxyaabaha sababi karo inay nabrahan kugu soo laalaabtaan waxaa ka mid ah number 1 wax loo yaqaano stresska ama walwalka badan. sidoo kaleeto waxaa ka mid ah number 2 cunno xumida ama nafaqada jirkaada oo liidato. sidoo kaleeto waxaa keeni karo number 3 wax loo yaqaano diabetics oo ah xanuunka macaanka. sidoo kaleeto xanuuno kale oo ka badan way keeni karaan. haddaba waa fahanay xanuunka wuxuu yahay, waxaan u gudbi doonaa sidee ayuu ku fidaa ama sidee ayuu lagu kala qaadi karaa xanuunkan. waxaa lagu kala qaadi karaa xanuunkan number 1 wax loo yaqaano shumiska ama dhunkashada. sidoo kale waxaa lagu kala qaadi karaa number 2 burushka iyo cadayga oo la wadaago. sidoo kale waxaa lagu kala qaadi karaa number 3 wax loo yaqaano dadka oo wadaagaan koobabka ama bakeeriyada cabitaanada iyo sharaabyada lagu cabo. sidoo kaleeto number 4 waxaa lagu kala qaadi karaa sakiimaha lagu xirto oo laisla wadaago. marka guud ahaan talo waxaa kuusii lahay in qofka xanuunka qabo inaadan la wadaagin waxyaabaha la sheergaraynin ama waxyaabaha laisla isticmaalin. si aan hore usoo sheegnaynay, fayraskaasi degdega ayuu jirka ugu fidaa. marka ka digtoono oo ka fogo qofka xanuunka qabo oo hala wadaagin waxyaabo badan. waxaanu gudbi doonaa qaybta ugu muhiimsan muuqaalkan oo ah sidee loo daaweeyaa nabraha ka soo baxa bishimaha bannaankooda. nabraha ka soo baxa bishimaha bannaankooda sida caadiga ah wax dawo ay haddii aad isticmaalin waa laga yaabaa inay kaa baaba'aan muddo 7 cisho ah ilaa 10 cisho ah. marmarka qaar waxaa dhici karta qofka asigoo wax dawo isticmaalin inay si caadiyin uu jirkiisa ugu baxdo fayraska, balse inta badan waxaa lagu daaweeyaa dawooyinka loo yaqaano antiviral medications oo ah dawooyinka ka hortaga fayraska. sida muuqaalka hordhacis ka soo sheegaybo, xanuunka waxaa keena nooc ka mid ah fayraska, gaar ahaan fayraska loo yaqaano
herpes simplex virus noociisa koowaad ee loo soo gaabiyo HSV1. marka dawooyinkan antiviral medications waxay u shaqeynayaan inay ka hortagaan viruskaas ama ay la dagaalamaanba. dawooyinkan waxay noqon karaan kiniinyo ama boomaatooyin, waxaan u isticmaali doontaa sida dhakhtarkaaga uu kugu soo qoro. inta badan waxaa la isticmaalaa boomaatooyinka. waxaan filayaa hadda wixii ka dambeeya inaad kala taqaanid nabaraha kasoo baxa bishimaha banaankooda ee caafimaad ahaan loo yaqaano herpes labialis iyo nabaraha kasoo baxa bishimaha gudahooda ee loo yaqaano aphthous ulcer. nabar kaleeto oo ka duwanna way jiraan runaantii. waxaa jira kuwa kasoo baxo dhinaca furuuryaha, waxaa jira kuwa furuuryaha midabkooda bedelo. kuwaas dhan maanta noo kasoo wada hadli doonaa, muuqaalo gaar ayaana ka samayn doonaa. anigoo runaantii kaaga mahad celinaya daawashadaada muuqaalkan. waxaa kuu rajaynayaa khayr iyo caafimaad. la wadaag saaxiibadaada muuqaalkan si ay u ogaadaan xanuunkan inuusan keenin wax caaro ah oona uu keeno nooc ka mid ah viruska saan muuqaalka ku sheegayno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.